بسم الله الرحمن الرحيم وعن داود halku soo dhawaada qodanaha xaqiiqada wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa wixii u dambeeyay saacadihii la soo dhaafay xaaladda bariga dhexe iyo waliba sidoo kale isbedelada ee mowjadaha siyaasadeed ee aadka u soo xoogeysanaya iyo waliba sidoo kale talaabooyinka dalalka reer Yurub ay qaadayaan waxaan sidoo kale isla eegi doonaa Mareykanka oo markan arrin la xiriirta in diyaaradaha adeegsanaya ay noqdeen kuwa koobiya waxaan sidoo kale eegi doonaa dalal dhowr ah oo si weyn u taageeray hogaamiyihii hore ee Iran oo geeriyooday dalkiisa haddaba Mareykanka oo markii ugu horeysay adeegsaday Iran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay markaasi u eg yihiin loo yaqaano shaheed maxay tahay sababta keentay in diyaarada dalka uu leeyahay Mareykanku uu koobiyo waxaan sidoo kale eegi doonaa waa kuwa dalalka taageerada u muujiyay Iran dalal dhowr ah ayaa waqtigan la tilmaamaya in taageero ballaaran ay u muujiyeen waan isla falanqeyn doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa waa maxay sharciga awoodaha dalalka Congress-ka maxadidi karaa weerarada Trump ee Iran uu ku hayo waan falanqeyn doonaa haddii ay wada raalli ka noqdo maxay hogaamiyaasha Yurub go'aan midaysan ee ugu yeelan waayeen Iran marxaladaha kala duwan ee waqtigan ay ka socdaan qodobadaasi iyo waliba wixii kale nagu soo kordhay ku qaada ligi doona saaxiibayaal soo dhawaada kana muuqaalka noo like reemeler inoo gaarsiiyo waa inaga codsi maalmaan hoose u soconaa inaan kor u soo noolaano oo channelka saaxiibayaal lidikana subscribe tan asaartaan muuqaalkan like asaartaan waa idinka codsanayna mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabay Mareykanka ayaa markii ugu horeysay adeegsaday Iran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee u eg magacoodana loo yaqaano shaheed taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee loo yaqaano CENTCOM ayaana ku dhawaaqay in Mareykanku uu adeegsaday dagaalka diyaarado cusub oo waliba masaafo dheer gaaraya diyaaradaha ayaana markaasi qaab dhismeed ahaan la mid ah kuwa Iran ay sameyso ee loo yaqaano shaheed marka laga eego sawirada la qaaday waxaa markaasi suurtagal ah in diyaaradahani ay markaasi ay ku qalabeysan yihiin qalab istiraatiijiyadeed oo dayax gacmeed markaasi ku xiran yahay falanqayaal badan ayaana diyaaradaha ee qiimaha yar markaasi lagu sameeyay ee loo yaqaano Lax ku tilmaamay koobigii sharci darrada ahaa ee markaasi lagu sameeyay shaheed 136 waxayna markaasi aaminsan yihiin in diyaaradahan lagu sameeyay hab loo yaqaano farsamada koobiyeenta taasi oo macnaheedu uu yahay in markaasi la sameeyay diyaarado kadibna markii la baaray diyaaradahan markaasi la burburiyay ugu yaraan dhinaca qaab dhismeedka waxaana markaasi ku jira isku ekaansho si kastaba ahaatee Mareykanka ayaa u muuqda markan in uu fadeexad weyn uu wajahayo iyadoona la tilmaamayo in ilaa ay hadda weli talaabooyinka iyo waliba sidoo kale koobiga sharci darrada uu ku qaaday inay tahay mid saameyn xooggan ay ku yeelan karto waa maxay sharciga awoodaha ee dagaalka Congress-ka maxadidi karaa weerarada Trump ee uu ku hayo Iran Congress-ka Mareykanka ayaa isku diyaarinaya asbuucan inuu markaasi u codeeyo qaraar ama bayaan oo ah oo xakameyn karaya awoodaha madaxweyne Donald Trump inuu markaasi sii wado howlgallada militariga ee ka dhanka ah Iran isagoona markaasi aan ogolaansho cad ka helin sharci dejiyaasha ee dalkaasi Mareykanka arrintaasi ayaana ku soo beegantay maalmo kadib markii ciidamada Mareykanku ay weheliyaan kuwa Israel duqeyn markaasi ka fuliyay gudaha Iran maamulka Trump ama Mareykanka ayaana markaasi sheegay in talaabadani ay jawaab ay u tahay hanjabaada ee ku soo wajahan dalal qaar oo ka mid ah dimuqraadiyiinta oo ay markaasi warkaan fal dagaal oo aan markaasi sharci dastuur ah loo haysanin xudunta muranka ayaana ah sharciga soo jiray ilaa waliba 1970 meeyadii oo loo yaqaano xeerka awoodaha dagaalka taasi oo waqtigan u muuqato in awoodaha guud ee Trump uu adeegsanayo in gebi ahaanba dhulka la dhigi doono waliba hoos loo dhigi doono haddaba sharciyada iyo waliba sidoo kale Congress-ka ayaana markaasi ansixinaya sharciga ama ansixiyay sharciga 1973 kadib dagaalkii Westman isagoon markaasi isku dayay in uu soo celiyo doorkiisa dastuuriga ah ee go'aanada dalka markaasi waliba nabadda loo horseedi jiray waana sababaha ugu waaweyn waqtigan ilaa ay haatan talaabo culus ugu qaadi lahayd Mareykanka maxay hogaamiyaasha Yurub go'aan midaysan ay ugu yeelan la yihiin dagaalka ka dhanka ah ee Iran Yurub way ogeeyeen inay imaan karto talaabooyin badanina ee hogaamiyaasha iyo waliba dejiyaasha siyaasaddu ayaana
daawanayay dhismaha militariga ee Mareykanka ee markaas uu ka waday bariga dhexe waxa ayna maqleen hanjabaadaha maamulka Trump uu u jeedinayay Tehran, taasi oo markaasi tusaale ahaan loo soo qaatay dhammaan himilooyinka nuclear-ka haddii kalena cawaaqib xumo ay yeelan karto.